waxaan marka hore jeclahay inaan u mahad celiyo bahda waxaan reeb iyo bartamaha dacom iyo walaalkay iyo saaxiibkay xaaji salaan kadib magacaygu Axmed Macali Ibrahim oo ku magac dheer Xaaji Faraako jooga gobolka Ohio magaalada Columbus macaanka shariifka ee Soomaaliya oo ninkii mar arko oo fariisto uusan mar kala ka leexarin oo imaanayo caanka wuxuu ku yaalaa moolka Banaadir qaybta hore ayuu ku yaalaa waa meesha ay wax garadka iyo odayaasha xaqiiqadoonka ay isugu yimaadaan ay noo wareystaan wixii fikrad ah oo aanu ka qabno arrinta soo korodhay ee ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto u soo korodhay oo ah aqoonsiga dawladda baawdkulka caalamka ah ay aqoonsatay maalintii duraad ahayd iyo la kulankii uu la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo President Obama ay ku kulmeen aqalka cad wixii ka soo baxay oo ay ummadda iyo caalamkooda dhageysanayeen wixii ay ummadda Soomaaliyeed ka qabto ayaga oo xoraansanahayo ayay maanta waxay noogu yimaadeen halkan si ay u hubiyaan oo ogaadaan aragtida aanu ka qabno haddaanu nahay shacbiga Soomaaliyeed oo jooga gobolka Ohio magaalada Columbus anigu fikrad ahaan waxaan leeyahay waa arrin aad iyo aad qiimo badan waa arrin aad iyo aad xiisadeeda leh horumar ballaaran oo dhinac walba taabanahayo ayay ummadda Soomaaliyeed arrintaasi u soo kordhisay maxaa wacay saanu ka warqabno caalamka hadda aanu joogno dawladda ugu awoodda badan dhinac walba waa dawladda Mareykanka muddada dhowr iyo 20 sano waa dhibaatada ku jirnay Mareykanku kaalmo badan inkastoo bixinahay laakiin si rasmi ah uga aqoonsanin xukuumadii kumeel gaarka ahayo ilaa 2000 ilaa 2000 soo socday oo kii cabta ugu horeeyay oo beegaadka ku xigay oo Jabuuti ku xigay laakiin maanta ayay noqotay nasiib wanaag in dawladdan cusub oo federaalka ah oo ka baxday kumeel gaarnimadii oo dawlad rasmi ah oo bishii September lagu xukumay dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho lagu doortay madaxweyne iyo baarlamaan kadibna madaxweynuhu prime minister doortay inay si rasmi ah u intiraafto oo ay u aqoonsato aqoonsigaas annagu wax weyn oo aad iyo aad aan isleeyahay waa loo baahnaa ayuu keenaya oo ah in ummadda Soomaaliyeed wixii hadda ka dambeeyo ay xor u tahay qarannimadeeda sovereignty-geeda inay maaragtay ilaashato in aanan loo yeerinin wax dambe oo aanan loo dhihin waa dawladda kumeel gaar ah security-ga waa inuu hay-ad hebel soo maraa ama waa in sida matalan IGAD oo AU inkastoo ay dadaal badan iyo wanaag badan noo sameeyeen haddana xurriyaddii Soomaaliya oo si rasmi ah iyo qarannimadii si rasmi ah u soo laabatay ayaan u aragnaa marka waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed arrintaani maanta guul weyn bay u tahay guushaas Ilaahay Azza wa Jalla ayaa u sabab ahaayo qadiray oo maanta inay dhacdo qadiray laakiin haddana waxaan isleeyahay waxa arrintaasi sabab u ahaa muddadii gaabneed oo 100 maalmood ahayd ee dawladda hadda jirto ay maamulka iyo hoggaanka ay haysay oo ay qabatay wax la taaban karo oo caalamkuna uu ka marakaca ummadda Soomaaliyeed ay ku dirsato hadday ahaaleed xagga nabadgelyada hadday ahaaleed xagga wanaajinta dawladnimo iyo hadday ahaaleed dadaal siyaasadeed oo diblomaasiyadeed intaba waxay muujisay arrinta maanta dhacday inay muxuu ahay ay dhacdo waxa ku sabab ahaa dawladda oo ugu horeeya madaxweynaheena muxuu ahaa Xasan Sheekh gudoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari Prime Minister Saacid iyo xukuumadda guud ahaan sida golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo shacbiga oo isku duuban oo muxuu ahaa arrintaasi u guntaday meel fiicanna ay marayso qoliyihii muxuu ahaa nabadiidka ahaana maanta ay arrintooda gabagaba tahay sidaas darteed ayay dawladda Mareykanka garwaaqsatay waxaan rajaynaynaa insha Allah dawladaha kale oo reer galbeedka iyo caalamka intiisa kale sida Asia ama Carabta ama Afrika ila iyaguna dariiqaas oo kale ay mari doonaan ummadda Soomaaliyeedna wixii hadda ka bacdi ay heli doonto kaalmadii ay caalamka ka sugaysay kuna soo noqon doonto haybadeedii sharafnimo iyo qarannimo ayaanu rajaynaynaa haddii Allah awoodda la idmo waxaa kale oo aanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa in shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo joogo dibadda iyo gudaha ay dawladdii barbar istaageen oo ay si fiican ula shaqeeyeen oo ay garteen maanta dantooda waxa ay ku jirto inayna danta ku jirin qabyaalad iyo kala qaybsanaan iyo gobolaysi oo ay danta Soomaaliyeed ay ku jirto midnimo iyo qarannimo oo la baadi koob iyo wadaninimo marka arrimahaas ayaa
aan isleeyahay shacbiga Soomaaliyeedna waa mudayihin in looga mahad celiyo waxyaabihii khilaafaad oo jirane waxaanu qabnaa waan soo jeedinaynaa haddaanu nahay shacbiga dibadaha jooga diasporada in wada hadal wanaag lagu dhameeyo ee aynan noqonin qori ku taag iyo inaanu ka gudubno wixii 20 sano dhibaatada noo muxuu ahaa lahaay waa mahadsan tahay waana u mahad celinayaa walaalkanaga ee muxuu ahaay bartamaha ma mahadsan tahay qaarkood website-yada qaarkood oo aan isleeyahay waa inay ka qayb galaan hirgelinta nabadda iyo midnimada iyo meesha loo socdo inay ummadda u daadahiyaan u hoggaamiyaan loo baahan yahay looma baahno in la waraysto dad warbarafada tashiil ah iyo dad aan wadanimadooda meel fog gaarsiisaneen in la waraysto ma fiicno waxaan arkayaa baryahan website qaar oo aad moodid inay u ololeynayaan in sidii hore ay Soomaalidu wali ku jirto kala daasanaashadii iyo dawlad la'aantii taasina waxaan u malaynayaa wadanimo ma aha marka waxaan soo jeedinahay in maxaa website-yada qaarkood ay markay shaqeynayaan oo ay wax qorayaan ay u fiirsadaan oo wixii ummadda Soomaaliyeed kaabahayo wanaagooda iyo dawladnimadooda iyo qarinimadooda ay qoraan oo ay hubsadaan haddii wax alla wixii la sheegay aad la booddo marka sumcaddii website-kaadana dhulka ku dhaca marka waxaan ku soo jeedinahay website-yada qaarkood inay ka waantoobaan waxyaabaha daciifka ah oo qabaa'iliga ah oo ay wareysanayaan ee ay wareystaan waxa maaragtay ummadda Soomaaliyeed kaabahaya midnimadooda iyo danahooda waa mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xayla Cali Wardheere oo aan joogno moolka Baraandi qaybta kore maqaayadda Shariif Cali tiibtada Shariif Cali waxaan salaamayaa website-ka raadiyaha farxamaanta naga duubaya xaajiga su'aashana la weydiiyey waa sidaad u aragtiin in aqoonsiga dawladda Mareykanka ay aqoonsatay dawladda Soomaaliya aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay waana wax loo baahnaay waana tallaabo hore loo qaaday ummadda Soomaaliyeedna waxay ka gudubtay 22 sano oo dib u dhaca oo dhibaato iyo baaba iyo qax iyo kala guur waxaan ku guulaysanay maanta inaan soo ceshano dawladdeennii aqoonsigeennii iyo qarannimadeennii iyo beesha caalamka sumcaddii aan ku lahayn dawladda Mareykankana waa uga mahad celinaynaa haddaan nahay jaaliyadda Columbus degan waddanka gobolka Ohio waxaana filayaa in qof kastoo muwaadin oo Soomaaliya ay ku faraxsan tahay arrintan ka dhacda Mareykanka oo ah dawladda ugu awoodda badan ilaa awood lehed hadda caalamkan aan joogno mar haddii dawladda Mareykanka oo aan 20 sano aqoonsan dawlad Soomaaliya inay ka jirto ay aqoonsatay dawladdii ku meel gaarka ka baxday 20 sano ka bacdina ku soo noqotay saxaafadda siyaasadda iyo caalamka dawladdeena cusub oo madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarena ka yahay Xasan ninka la yiraahdo Cabdi Faarax Shaqdoon Saacid iyo baarlamaanka sharafta leh oo gudoomiyaha ka yahay Professor Jawaari iyo dhammaan golaha wasiirada iyo baarlamaanka waa ku faraxsanahay waana taageersanahay dawladdeena waana ku faraxsanahay sidii wax u dhaceen waana ku faraxsanahay taageerada caalamku la siiyay ummadda Soomaaliyeed waxa uu baaqaynaa inay hor u socoto dawladdeeda ay xajiso isqabqabsiga iyo burburka iyo wax iska sheega iyo burburka waa nagu filaya 20 sano horaha loo socdaa leenahay qarankii Soomaaliyana garbaha laga qabto wixii dhacana hal halmaamo hal sacafiyo wixii tagay Soomaaliya waxay tiraahdo Soomaalidu waxay tiraahdaa tagta reeb ee timaada qabo hadda waxaan joognaa wixii dhacay soo naqamayaan waa tageen baal cusub aa furmay ummadda ay sacafiso qarannimadayna iyo dawladnimadayna iyo walaalnimadayna hala xajiyo dalka hala jeclaado xaajigana waa kaaga mahad celinaynaa galabta booqashada noogu timid
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحلي أنا إبراهيم محمد عاشكري وحن كمدها جالية الصومالية وياشير أيام كمدها يوم كدقن كولومبوس أوهايو. أنا برنامج كان روح يسر عليه أن كهضو قيبها أن كهضها وحوي سدح قضب قضب وحكوسابتين هاي إنا متقنا عن ضيوي الأدرو آليات يدور ركز صاحبه يقول ريين لسيدي يقول ضيئي مرين إحنا مرأة جعلها قضب كأوهر وإنا عن ضيوي الأدرو بمولد الصومالية إلا أقوصني ومدعوين حسن الشيخ محمود وهالك يمد iyo secretary state departmentiga gabadha la yiraahdo Hillary Clinton shir jaraa'id ay wada qabteen aqoonsigaas kadibna madaxweynaha ay arkeen madaxweyne Obama madaxweynaha Mareykanka president of United States arrintaas aad iyo markii aan arkay aad baan ugu farxay maalintii Khamiista bisha taariikhda ay ahayd 17 bisha January هذا وحيرتها وحي وحجرة أد وفرحنا Soomaaliya maanta inaan dawlad taam oo meel kasta laga aqoonsan yahay awalku meel gaar ma lahayd dawlada ajnabiga beesha caalamka ayaa talada nala lahayd waxa la waxaan doona ama aan rabna sidaan rabno uma heli jirin waana labi jiray ama siday doonaan bay wax u dhigi jireen maanta waa dhamaatay arrintii dawlad buuxdo oo taam ah oo lixdankii aan qaadanay oo kaleetay ayaa soo noqotay inkastoo burbur badan aan soo marnay qayb waa qaybtaas qaybta labaadna waa dawladda Mareykanka oo ugu horeeya madaxweynaha iyo secretary of state waxaan u dirayaa hambalyo waxaan u gudbiyaa haddii aanu nahay dadweynaha Soomaaliyeed laba qaybood ayaan nahay dadweynihii faraha badnaay oo wadanka gudihiisa ku noolay qurba joogto waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto dadweynaha Soomaaliyeed oo gudaha jooga wadankii Soomaaliyeed ku nool waxaan leeyahay dawlad baa idin dhalatay dhibaatada dhacdana hadda waxay ku dhacdaa dadweynaha Soomaaliyeed dawlad baa maanta idin dhalatay waxa la doonayaa in aad ka baxdaan waxyaalihii hore iyo nuxnux iyo xaggay tahay iyo intay tahay waa dhamaatay adduunka sidoo ku noolaaday noolanaan doonayna adduunku wuxuu u noolaadaa kala dambeyn sharciga uu leeyahay dawladoodu aaminsan yahay wixii dib tirsanaane maxkamad baa jirta lagu kala baxo marka waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed oo gudaha joogo dawladda la'aantii ma soco karto waa baalashii baa tihiin adikay dad idii tahay ilmihiina baday ku dhamaadeen gabdhihii baday ku dhamaadeen hooyooyinkii baday ku dhamaadeen xabis bay ku jiraan burcad baan lagu tilmaamay in alla intii xumaan adduunka tiilo dhan baa madaxana laga saaray waxaas waxay noogu dhaceen waa dawlad la'aanta haddaan dawlad leenahay noo doodayso waxaas ma dhaceen aniga waxaan leeyahay iska ilaaba adduunka waxa ugu important oo ugu muhiim ah meesha aad seexanaysa iyo wadanka aad ku nooshahay iyo halka aad ku nooshahay inaad nabadgelyo ku hesho anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladda aan ayidno aan garab istaagno annagay faa'iido noo tahay waddankayna hooyana hallo aan u noqonno nin kastaa waddankii mataqaana wuxuu ku tabarruci karo ha ku tabarruco kii aqoon geeyo kii wax yaro oo lacaga geeyo kii mataqaanaa ii sheegay maskax geeyo kii mataqaanaa tala fiican geeyo waddankayna aan u noqonno oo aan gacmaha isqabsanno oo Soomaalinimo la'aanteed lama noolaa kare kolba waa Soomaaliya u dhamaanaysaa arrinta yaysan ugu daahin ayadoo wanaag u dhamaanayso maantaba aan bilowno shalay madaxweynaha wuxuu yiri shalay iska ilaaba maanta ka fikiray bari waxa imaanay aan taas u diyaargarowna waana mahadsantihiin waa idinku dheereeyay waxaana fadhinaa baarka la yiraahdo isoo maray oo ku yaala Banaadir xaajiyo hadda fila duubaana mataqaana maanta waa lagu codsamay waa mahadsan yihiin labada website oo bartamaha iyo raaqareebna waa mahadsan yihiin aad iyo aad
meediyada aad iyo aad bay la'aanteed ma socon karto waa mahadsanyihiin waxa wax lagu sheegtaa waa meediyada waxa wax laga dumiyaana waa meediyada labadaba waa jiraan marka waxaan leeyahay baar soo maray baan fadhinaa odayaashii Columbus baan ka mid nahay qayb ka mid ahaan odayaasha aan ka mid nahay baarka ay soo marayaan fadhinaa Shariif Cali iskale waa mahadsantihiin waxa la wixii rabay inaan la soo xiriiraan welcome السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. odayaasha meesha fadhiya oo guddiga oo in walba Soomaaliya ka tirsan oo iskugu imaaday maqaayadda la yiraahdo soo mareyn oo shariifku uu leeyahay ku taalo manaadir qaybta sare ayaan ka hadlaynaa. waxaan taageersanahay dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya. anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Xasan Maxamed Axmed wiil waamo ayaan ku magac dheerahay waxaan ku dhashay jubbada hoose tuulada la yiraahdo Buuloguduud afantay marka waxaan taageersanahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya 22 sano kadib in ay noo dhalatay hadana dawlad oo maantana madax korkiis meel la salaaxa male ayna aqoonsatay dawladda Mareykanka waan ayiibsanahay dadkeena ku nool gobolka Columbus Ohio waa ku mahadsan yihiin labada madaxweyne madaxweyne xasan sheekh maxamed iyo president Obama go'aanka isla gaareen waa ku mahadsan yihiin Mareykanka waa ku mahadsan yahay waxaa weeye waxaan leeyahay dawladda waxaan u duceynaynaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya aamin dhaha baayad hore rooran tan dambe reeban tan kore raaran tan baalaha riixan tan hoose ribatan dhulka taaka dadka aabiyi hooyo dhulkaan ka duceynay samada Allah ka aqbal wixii fiican orod ku raadi ma dhigeen Allah nagu sii faatax waxaa kaloo jirta Soomaalida waxa waaye hal dhigay wax ku maqashaa wixii hore waa dhamaaday ninkii been wax ku cuni jiray bad iyo beeriyado ama boos xamaaliya ka galay beledka hoostiis qalan nologa baxal nooga daran beled abaareed waa faantaan malayna waxa weeye hadda anigu gabar baa waxay tiri ilaa Soomaaliya intay dawlad ka noqonayso wax jacayl oo dhaxmari karan bale hadda waxa waa niyada ii soo noolaatay gabadhii hadda waxa meel yirba ii taagantay diyaaradda madaxweynaha inaan raacaro boodka meela laakiin haddii loo ogolaado inaan Muqdisho ku noqdo ayaan jeclahay anigoo gabadhayda wata marka sidaa daraaddeed nin walba cuqdada ha iska saaro kumbaleesada ha iska saaro marka Soomaaliya waxaan leeyahay isku meel ku imaada isku aruursanaada hadee qoraxda waxa qorax sacab loo masaari karo marka dawlad baa dhalatay ninkii muxuu ahaa filimka baska iyo ka harin haddii kale waan ka baska duu ka tag nasiibka ma garan madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida waxaan u sheegay federaalka intuuna ka bixin Mareykanka heshiiska ha ku daro dhulkan oo barwaaqada ah Mareykankana ha ka noolaad anagana ha naga noolay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi sharow kaale hadal ma iskana magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Ciid Faarax waxaan ka mid ahay odayaasha degan gobolka Ohio magaalo madaxda Columbus waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ay noola mid tahay maalintii 60 oo kale maadaama aan dawlad la'ayn 22 sano maantana aan noqono dawlad rasmiya maanta iskeer ayada isu maamushay umuurahan dawladda maanta la aqoonsaday iskama imaan riyo kuma imaanina dadaal bay ku timid mataqaanaa maanta ilaa iyo 2000 ayaa mataqaanaa maaratay waddankeena wuxuu burbursanaa teeriyas 90kii 2000 bay rajadii ugu horeysay ay bilaabatay in mataqaanaa Soomaaliya la soo raadsato wuxuu dawladnimo magaceeda la in la soo diyo waxay soo jiidatay qolada arkaa meeshii rabtaa soo gaarsiiso ama wanaag ku soo gaarsiiso ama xumaan ku soo gaarsiiso waxay timid ilaa dawladdii oo madaxda ka Sheekh Shariif كل الصومال وحيت هذا المال كسر يدور صراحة ملا هدي ولا أغلى شيء أنا نيجو قصر يا عيالة الماما يا
haddii xumaan la sheegana kullay ninka ugu sarreeyo ayaa mataqaanaa tilmaanteeda iskale marka waxaan filayaa wanaaggii dawladda ku-meelgaarka ahayd ay soo samayday oo sheekh shariif madaxda ka ahaa waxay keentay oo kuwii hore ka duwan kalsoonida dadka inay soo jiidato in tuhumada dadka ay ka bixeen taasna waxaad mooddaa in lagu kasbaday sabarka badan iyo dulqaadka badan ee sheekh shariif lahaa alxamdulillah maanta dawlad kale ayaan cusbaa noo dhalatay wanaag iyo mataqaanaa maaragtay rajo ayaa noo muuqato rajadaas maanta noo muuqato dadka qaar ninba oon fikrad buu qabaaye waxa waaye dad qaar waxay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee waddanka gudihiisa ku nool ayay dhaliil u jeedinayaan dadna waxay u dhaliilaadaan dadka dibadda ku nool aniga waxaan ka mid ahay dadka qurba joogta mataqaana dhaliisha u jeedinaya annagu haddaan qurba joognahay kala qaybinta soomaaliya iyo dhibaatada soomaaliya hadal iyo waxaan qorna keliya maahana hanti ayaan gelinay inay soomaaliya usu imaan haddana laga kaftoomo ilaahay alxamdulillah maanta dadkii dhibaatada runta ay taabanayday iyo dadkii mataqaanaa madaxda ahaay inay gaareen guushii ay mataqaanaa ummadda la doonaya inay gaareen dawladda maanta noo dhalatay ee madaxda oo ka yahay xasan sheekh maxamuud rajo weyn ayaan ka qabnaa kalsooni weyn baan u haynaa waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwii ummaddaasayta wanaagga iyo kayrka iyo mataqaanaa maaragtay ay tiigsanayso kuwii hanan lahaa allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد waxaan fadhinaa Banaadir Mall Cleveland Avenue magaalada Columbus ee Ohio maqaayadda odayaasha iskugu yimaadaan ee la yiraahdo isoo maray ee aniga aan maamulo oo Sharif Cali ah waxaa fursadna siiyey website-ka bartamaha uu wata saaxiibkeen weyn xaaji oo jiiraankayga marna saaxiibkayga ah in aan ka cabirno ra'yigeena halkan waxaan ka qabno arrintii doorashada madaxweynaha iyo booqashada ku yimid America wallahi aadaan ugu faraxsanahay 20 sano ka bacay in dawlad federaal ay noo dhalato Soomaaliya ilaahayna waxaan aga rajaynaynaa xasan sheekh maxamed iyo dawladda uu hogaaminayo inuu ilaahay barwaaqo iyo bashbash iyo meeshii la filayo Soomaaliya meel ka fiican inuu gaarsiiyo taasaan leenahay aamiin aan leenahay wixii cadow ana ilaahay inuu ka qabto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وحاطيت مويل بصر ليس واماني بابور وحدي قال إلا بالعلم عاجي مركنا ومحزنتها هاي ورئيسك نلي لنيسيد أنا كان هذلينا يا هاي سومالي وحنفجيني يا خير بش برواقه أنا مجاعي يوسف عشرو عبدي سوماليا وقتي أنا هذا تاجرنا هاي وحي مريسا ميل آد وفي عن هنبلي عيانا ليا هاي لبي 20 سنة أو دبا عيال سومري إلهي مد خير قبل إلهي أكو بدلو دولة أنا متان أو دخل كشي إلهي كديرو أقول سيجا شالي أي
ka heshay United States muxuu ahay waan soo dhaweynayaa waan u hambaleynayaa waxaana leeyahay ka faa'iideysta muxuu ahay inta Soomaali hartayna hala badbaadiyo Soomaali inta badan wax badaha ku dhintay wax gaajo u dhintay wax dibadaha kala aaday wixii wadanka ku haray inta dibadda joogto waa isku meel ama waa kala badan yihiin inta dibadda badanaa ma qabnaa marka waxaan rajaynaa in si nabad ah muxuu ahay Ilaahay wadanka nabadda Ilaahay nagu celiyo carruurta halkaan ku kortay ama ku dhashay ama ku barbaartayna Ilaahay ayagoo nabad oo diintooda islaamka haystana Ilaahay uu ku celiyo annagoo nabad ahna Ilaahay nagu wada celiyo Ilaahayna waxaan ugu bareeyaa bash iyo barwaaqo inta dhiman Ilaahay noo dhameystiro. Assalaamu calaykum.